iska saamax. Dhaawaca dadka qaar ay ku geystaan ka soo qaad inay ahayd carro yar oo kugu soo biday taa oo gacantaada marisay kadibna sidaa ku tirtirmatay. Ayaga ha wadaan dhaawacaaga, adigana waa saamaxeeda. Hubaal inay ugu dambeyntii aad noqon doonto kan ka guulaysta ayaga kuwa dulaysan. Naftaada ha eedin. Naftaada ma ahan inaad ku eedo guuldarrada aad la kulantay nolosha. Wax walba waa qoraal wadda ay ku socdaan ayay leeyihiin. Fatahaadda webiga iyo badda waxay ka bilowdaan dhibic yar oo biyo ah ilaa ay ka noqdaan wax aan la koontarooli karin. Dhibicdaasi ay ka bilowdeenna laguma eedeeyo fatahaadda. Waqtigaaga sii. Waqtigaaga la qaado qofka soo saari kara shakhsiyaddaada wanaagsan ee ku dareensiin kara farxadda iyo waxaad u qalanto. Macno ma lahan qof mar walba buuq ugu furaya inaad waqtigaaga ku lumiso ama aad la qaadato. qiimaha noloshaada ma ahan in ciqaab iyo cadaab qalbi aad martaa adigoo heli kara farxad iyo qalbi degan. Haddii aad doonayso farxad ama laab degan, waxaa tala ahaan kuu sii lahaa 3 ficil inaad samayso. Midda koowaad waxay tahay marka ugu horeysa naftaada kontarool oo ismaamul adiga. Waa inaad awood u leedahay in aad isxakameyn karto oo xaaladaha nolosha aysan mar walba dhanka ku weecin. Midda labaad waxay tahay inaad leedahay mar walba 2 qorshe oo isgarab yaal. Micnaha baahidaada koowaad waa inay daba socotaa baahidaada labaad. Si haddii aad u weysid baahidaada koowaad, aadan u niyad xumaan oo laabtaada u kicin oo ay ku degnaataa qorshaha baahidaada labaad. Qodobka saddexaad wuxuu yahay waa inaad leedahay dulqaad aad ku hilmaami karto wax walba oo ku dhiba ama ku dhaawaca. Waa in aad ka fogaataa wax walba oo ku dhibi kara, xitaa haddii aysan taa dhicin. Waa in aad leedahay karti aad isku hilmaansiin karto waxyaabaha qaar ee naftaada u wanaagsanayn. Laabtaada ka taxadir marka aad kaligaa tahay, khaasatan marka aad seexanayso. Iska cafi qof walba, dunida ha ka tagin adigoo qof ciil u qaba ama u maleegaya shirqool. Hubaal haddii ay taa dhacdo, waddada aad wajahayso maahan waddo wanaagsan. Sidoo kale ka taxadir afkaaga, micnaha carabkaaga marka aad dadka la hadlayso. Ha tuurin ereyo toos u qabta laabta qofka aad la hadlayso oo xanuujinaya. Ku dadaal inaad tuurto ereyo laabxul ah oo qofka dareensiin kara nafis ugu yaraan, xitaa haddii ay taa dhicin. Iska aamus, afdaboon waa dahab. Ama iskaga fogow goobtaasi maadaama aadan wax wanaag ah samayn karin ama ku hadli karin. Ehel iyo asxaab. Way iska wanaagsan tahay inaad leedahay ehel badan iyo asxaab badan, balse isweydiintu waxay tahay ma leedahay ehel ama asxaab oo aqrin kara wejigaaga, isla markaana fahmi kara waxaad tabanayso isla waqtigaas iyo sida ay wax ka yihiin. Haddii jawaabtaada aan ahayn, dib ugu laabo liiska asxaabta iyo ehelka wanaagsan. Mahadnaq. Marka aad ka mahadnaqdo waxaad haysato iyo waxaadan haysanba, isla markaana aad arki karto, fahmina karto qiimaha waxa lagu siiyey, waa markaas marka uu iimaankaaga xasilan yahay, aadna heli karto deganaan qalbi. Qiimaha nolosha ayaa ah in aad ka mahadnaqdo waxaad haysato iyo waxaadan haysanba. Maxaa yeelay sikinka ay neefta sankaaga ka soo baxayso, sikinka ku xiga ma ogid inaad gaari doonto iyo in kale. Sidaa daraaddeed, inta badan ee mahadnaqaagu bataa waa inta badan ee laabtaadu xasishaa. Is-xisaabi. Waxa hareerahaaga ka dhacaya waa kuwo tusaale iyo cashar la doonayo in aad wax ka barato. Aysan kugu moodin yaab iyo naxdin, ee garasho iyo dib isku xisaabina kuu noqoto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.